Assalaamu calaykum daawade beri waxaa jiri jiray gabadhan yar oo lagu magacaabi jiray Leyla waxa ay la noolayd aabaheed waxay dhimatay hooyadeed bilo ka hor waxayna ahayd gabadh yar oo aad iyo aad u firfircoon maalin maalmaha ka mid ah aabaheed waxa uu u keenay isagoo soo guursaday xaas cusub waxa uuna baray gabadhiisa iyada oo gabadhiisu aad iyo aad u yaabtay waxa uu ugu jawaabay aabo gabadhan cusub waxaan u soo guursaday si ay adiga kuu ilaaliso oo ay wax kuugu kariso kabacdi Leyla waxay ugu jawaabtay aabo uma baahni wax ii kariya iyo waxay ogaada aniga ayaa isku filan wayna iskaga dhaqaaqday aabaheed waa uu yaabay sidoo kale xaaskii cusbeed oo aabaheed soo guursadayna waa ay fajacday waxa uuna ugu jawaabay aabaheed waxa uu ku yidhi xaaskaygii waxba ha ka soo qaadin waa cunug yar waa ay kula qabsan doontaa xaaskii cusbeedna waxay ku tiri dhib ma lahan Leyla waxa u timiday hooyadeedii cusbeed waxayna ku tiri waa dhaxan hoo xidho funaanadan waxay ku tiri ha isku dayin inaad noqotid hooyaday oo kale booskeediina ma geli kartid ayay ku tiri iyada oo markaasi xaaska cusub uu aabaheed soo guursaday ay waaninayso balse Leyla waa ay dhibsanaysay hadallada ay kula hadlayso xaaska cusub ee uu aabaheed soo guursaday waxayna la yaabanayd naagtani sida ay ugu talinayso amaba se ay wax ugu sheegayso waxayna lahayd iyada oo wadada keligeed socota naagtan aniga madaxa ayay iga cuntay yaa iga qabsada waxaan cun iyo waxaan samee ayay aniga igu leedahay mayada ayaa i dhashay ayay lahayd maalin kasta waxay ahaayeen kuwo markaasi isla murma xaaska cusub ee uu aabaheed soo guursaday Leyla waxay ahayd gabadh aad iyo aad u wanaagsan sidoo kale gabadh ay deris yihiin ayaa u timiday waxayna ku tiri gabadhan yar way madax adag tahay oo dadka deriskaba sidaa ayay ula dhaqantaa ee adigu waxba ha ka soo qaadin ayay ku tiri oo waxani dabeecad ayay ka tahay maalinba maalinta ka dambaysa waxay ahayd xaaladoodu mid sii xumaata oo waa ay isla murmi jireen sidoo kale Leyla aabaheed madax xanuun ayuuba ka qaaday murankooda faraha badan leh iyo isqabqabsigooda maalin maalmaha ka mid a Leyla aabaheed waxaa u timiday xaaskiisii waxayna ku tiri gabadhan yarta maad la hadashid oo aad wax u sheegtid anigu macadowgeeda ayaanahay waxaan u sheegayaa un wax danteeda ayay ku tiri balse waxa uu yidhi aniga ayaa la hadlaya waxay tiri maalin kasta ayaad la hadashaa waxbana iskama bedelaan anigu ma garanayo gurigan sidii aan ugu sii noolaan doono balse Leyla aabaheed waa uu fikiray waxa uuna yidhi gabadhan yar waxaan u geynayaa abtigeed balse ay ugu soo yara nasato dhowr maalmood oo xagga u soo joogto Leyla abtigeed waxa uu lahaa meel farmasiya oo lagu iibiyo dawooyinka halkaas ayuuna aabaheed keenay si ay halkaasi ugu soo yara nasato maalmo Leyla markii loo keenay abtigeed waxa ay ka codsatay abti ma kula joogi karaa ilaa inta nolosheeda ka dhiman waxa uu ku yidhi abti maxaa ku helay maxaa dhiba oo jira waxay ku tiri abti waxaan nacay naagtan aniga iyo aabahay na soo dhex gashay waxaana nacay hadalkeeda oo aan aad iyo aad u dhibsaday waxaan rabaa inaan xaggan kula joogo maya ayuu ku yidhi abti looma baahna inaad saa u fikirtid waa hooyada ayuu kale waxaa loo baahan yahay inaad u samirtid kana soo qaadid booskii hooyanimo inay kuugu jirto Leyla waxoogaa way aamusnayd iyada oo markaasi fikiraysa waxayna la soo bootay hadal abti waxaad iibisaa adigu dawooyinka waanad i caawin kartaa abti seen kuu caawiyaa abti waxaan rabaa inaad siisid dawo aan ugu daro cuntada oo suna abtigeed afka ayuu qabsaday waxuuna ku yidhi maxaa dhacay abti ayay ku tiri naagta nafta ayay ii keentay uu aabahay qabo waxaanan rabaa in ay dhimato waxaan rabaa inaad siisid dawo suna oo aan markaasi cuntada ugu daro si ay u dhimato abtigeed waxa uu ku yidhi abti arrinkaasi waa khatar balse waa aan ku siinayaa waxa uuna u soo dhiibay dawo markaasi waxa uuna ku yidhi abti waxaad samaynaysaa cuntada ayaad ugu daraysaa maalin kasta cuntada ayaad ugu daraysaa dawadanina ma aha mid markaasi ay hal mar ku dhimanayso balse waxay u dhimanaysaa aayar oo lama dareemayo waxaa la moodi doonaa in ay iyadu xanuunsatay oo ay markaasi iskaga dhimatay si caadiya waxaa kale oo loo baahan yahay ayuu ku yidhi in aad adigu bedeshid dabeecadahaaga oo aad iska daysid dabeecadii qallafsanayd oo aad noqotid gabadh baariyadu ah si ayna markaasi kaaga dareemin oo waxaa la rabaa in aad gebi ahaanba adigu isbedeshid Leyla waxay timiday gurigii iyadoo dawadii wadata balse marka ay siiso hooyadeedii cusbeed cuntada waxay ku odhan jirtay si adeeca oo edeb leh ayay uga qaadan jirtay waxayna ahayd mid aan hadal ku soo celinin
Layla aabaheed iyo hooyadeedii cusbeed waa ay la yaabeen dabeecadda ay la soo baxday Layla, iyagoo markaasi isweydiiyey waxayna dhaheen guriga abtigeed ayay isku soo beddeshay. Maalin kasta Layla waxay ugu dari jirtay dawadii cuntada ayay ugu dari jirtay, waxayna ahayd mid markaasi adeecda ulana hadasho si naxariis leh. Waxayna ahayd aayadeed mid markaasi aad iyo aad u wanaagsan oo markii horeba waa ay fiicneed, balse Layla ayaan fahmi jirin. Labadoodii waxaa ka dhex dhashay jacayl aad iyo aad u fara badan, iyada oo Layla maalin kasta cuntada ugu daraysa dawadii uu markaasi abtigeed soo siiyey. Waxayna ahaayeen labadoodu kuwa aad iyo aad isku fahma. Waxaa soo gaaray dhaawac Layla aayadeed iyadoo markaasi dhayday, waxa ayna ka xumaan jirtay dhaawaca soo gaadhay. Waxoogaa way xanuunsatay, waxayna istiri dawadii aad siisay ayaa gaadhay oo waa ay dhiman rabtaa. Waxay u soo carartay abtigeed iyadoo u sheegtay in ay xaaskii aabaheed aad iyo aad u xanuunsanayso. Waxayna tiri abti ma rabo inay iga dhimato, si fiican ayay hadda iila dhaqantaa, aniguna sidoo kale si fiican ayaan ula dhaqmaa. Layla abtigeed waa uu ku qoslay, waxa uuna ku yidhi abtiyow hawlwelin ayuu ku yidhi dawada aan ku siiyey ma ahayn mid suna ee waxay ahayd mid iska caadiya ayay ahayd oo aan qofka waxba yeelaynin. Waxaanan doonayay marka aad isbeddeshid ee aad ula soo baxdid dabeecad wanaagsan, dhaqanka idinka dhex dhasha sida uu noqon doono iyo sida aad isku fahmi doontaan. Layla waa ay faraxday, waxayna tiri abti waad mahadsan tahay, waanad ii badbaadisay ayay ku tidhi. Aniga ayaa khalad ka fahmay xaaska aabahay, balse waa qof fiican oo aad iyo aad u fiican, waxayna ii buuxisay booskii hooyanimo ayay ku tidhi. abti waad mahadsan tahay. Waxauna ku yidhi abtigeed abti dhib ma laha ayuu ku yidhi, hooyadaadan fiican ilaasho oo si fiican ula dhaqan. Layla iyo aayadeed waxay ahaayeen maalinkaa wixii ka dambeeyey kuwa si wanaagsan u wada dhaqma oo isku ixtiraama sidii gabadh iyo hooyadeed. Daawade fiidiyowgeenna maanta intan ayuu ku egyahay. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowga. Haddii aad ka heshay sheekadan, fadlan ha ilaawin inaad saartid like, sidoo kale commenti, hana ilaawin channelka inaad saartid subscribe.